jiraan nagu maxaan haysanaa kaliya nagu measles kaliya ka haysanaa saddexdan xanaanooyinkeena waxa yaala waa measles kaliya labada kale ma haysano measles waa maxay waa jadaacadi membiskuna waa dhaga fidiye waa maqashan sama wuxuu ku dhacaa qanjidhada candhuubta soo saaray barometry glands loo yaqaan ayuu ku dhacaa qofka markaa waxay sameeyaan qanjidhadaas way bararaan marka waa viral infection weeyaan ka kalena waxa la yiraahdaa rubelladu waa xanuun sida caadiga kuwan la mid ah waliba ka sahlan normal qofka caadiga markuu ku dhaco laakiin wuxuu dareeyay aad u dareeyay complications badan uu leeyahay gabadha pregnant ka haduu ku dhaco marka gabadha pregnant ka haduu ku dhaco wuxuu u gudbayaa ilmihi yaraa dadii ilmaha yar baa complications iyo xaalado khatar ah ayuu galiyaa wuxuu ka mid yahay infections la yiraahdo touch infections buu ka mid yahay touchka artaas waa rubella marka rubelladaas waa halis weeyaan hadii gabadha pregnant ka ay ku dhacdo laakiin marka kale waa maxay u sahlay marka inuu talaalkooda ma haysana labadan waxaanu ka haysanaa measles marka MMR waa maxay waa live yellow fever kana waa xanuun viral disease ah kanaacada gudbisa sidii xumadda ay u gudbinaysay xumadii dengue fever ka qaada ayuu baa qaadayadana viral infection yellow fever saguna waa live waxa kamid ah kuwa live ka attenuator-ka BCG-ga maxaa lagu daweeyaa waxa kooda maxaa lagu talaalaa tuberculosis lagu talaalaa kalabaad waa inactivator maxay uga jeednaa amba kelid nay qoyska gelinay miyuunole kan jeermisku ma noola kan jeermiski waa la dilay baa qofka ayaa lagu mudayaa marka kan wuxuu ka kooban yahay baadshiinka oo la dilay mana badan karo mushkilada badan oo kii hore hatta xagga reaction-ka ku kala duwan ay soo saarayaan labadoodu markuu leefku yahay iyo markuu yahay killerka reaction-ka qofku soo saaraya hatta way kala duwan maadaama kaasi noolaa laakiin immunity-ga kana waa carinaya kan muxuu u baahanayaa booster doses kii hore maxay lahayn life-ka muddo dheer buu ayuu joogayaa laakiin muddo dheer joogi maayo saadiradeed mayrogaar wuxuu baahayay booster doses waxa uu xoojin waxa kamid ah hepatitis A-ga iyo booliyada marka booliyada waliba nooca IBV-ga baa sagana raada sagaafka laga qaadanaya oo drops waa dhibco marka kaas ma aragteen idinku sama ka dhibca ya talaalka dabeesha dhibcaha xanaanayeen ku yeela IBV-gan waa kamid jadwalkeena aan isticmaalo talaalada ku jira rabies-ka kamid ah oo xanuunka marka origin-kiisu ka imanayo dogs iyo eeyda ee waalida ku keena virus baa keena waa xanuun khatar ah haduu faafo maskaxda ayuu gaaraa marka halisiisa badan ka saddexaad waxa la waa subunit ama waxa la waa recombinant ama conjugate vaccine waa kii aan idin sheegay kula qayb kamid ah jeermiska qayb kamid ah ayaa la soo qaadanaya jeermiska dhameystiran ma ama carbohydrate